السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراها أما حبحبكو وحوليه فايدوين عافيمات وعضو بلارن فيتامين دا يا معدن تلاقى هلابا ومد حد جيدو بدن يهي سلاكين وحلقا يابا دادكو إنay saddex arrimood ayaad ugu baraarugsan yihiin marka qaraha ama xabxabka laga hadlayo. Midina dhinaca goosha ay tahay oo research-ka lagu sameeyay xabxabku inuu dareenka kacsiga ama hamada kacsiga inuu naqaano u badiyo. Oo amino acids fara badan ayaa laga helaa qaraha ama xabxabka. Dhinaca kale qaraha ama xabxabku waxa uu fiican yahay kaliyaha. waxaanu leeyahay biyo aad u badan taasoo u saamaxaysa qofku haddii uu cabo ama uu isticmaalo qaraha in uu qoyaanka faraha badan ee jirkiisa u galaya inuu samaynayo inay meermaan kaliyihiisu ama marka cabitaanka faraha badan ee uu jirkiisu ku dhacaya maadaama xabxabka uu dhadhan ahaan iyo damcad ahaan u fiican yahay in uu xaddi fara badan qofku uu qaato biyuhuna ay ku badan yihiin taasi ay u saamaxda markaas inay kaliyuhu ay u meedmaan qofka. Research-ada kale caafimaadka lagu sameeyay waxa kamid ah qaruhu waxa uu fiican yahay dadka wadna xanuunka qaba iyo dadka xanuunka hypertension-ka qaba. sababtuna waxa weeyaan marka koowaad waa zero sodium maadada sodium-ka ma laha markaas dadka ay sodium-toodu badantay inta badan dadka dhiikarka qaba waxa aad loo ilaaliyaa cusbada haddii markasta cusbadaadu ay badantay oo aad isticmaasho qaraha waxa kugu dhacaya inuu hoos u dhigo ama inuu jirka cusbada saayidka ah soo galaysa uu ka saaro. markaas haddii wadna xanuun aad leedahay wadna xanuunkaagu wuu kaa yaraanayaa haddii dhiikar aad leedahayna dhiikarkii wuu kaa yaraanayaa intaba. haddaba keliya dareenka uma qaadanaysin ee qaruhu inta aynu tilmaamnayba waa uu fiican yahay. dad badan ayaa markay su'aalahayna soo weydiinayaan waxay ku oranayaan seebaan qaraha u isticmaala. qaruhu isticmaalkiisu waa very simple inaad caadi u soo iibsato oo aad dusha si fiican uga maydho oo qaybtiisa caadiga aad isticmaasho iyo inaad cabitaan aad ka dhigato muhiimna maaha inaad sokor saayid aad ku darto iyo inaad sokor kaloo dheeraad aad ku darto. qaruhu isagaa sidiisa u macaan oo markaas uma baahna inaad sokor kaloo saayid aad u isticmaasho inuu si fiican u bislaaday ayuunbaa muhiima. intaa haddii aad samayso qaraha faa'iidooyinka aynu tilmaamnay waad ka helaysaa. dareenkaagana wuu badinayaa hamadaada sare u qaadayaa xanuunada hypertension-ka iyo heart disease-kana wuu kaa difaacayaa oo hoos kaaga dhigayaa. Wassalaamu calaykum.